magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ayaa sanadkani marti gelinaysa xuska magaalooyinka dalka taasi oo ay magaalada waqti xaadirkan ka socdaan hawlo loogu diyaar garoobayo xuskan oo ay kamid yihiin kor u qaadida bilicda magaalada iyadoo ay ka qayb qaadanayaan xafiisyada dawliga iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan xaafadaha magaalada Jigjiga haddaba wakaalada dhismaha iibka iyo adeega gaarka ee booliska dawladda deegaanka Soomaalida oo iyadu ka duuraysa hawlahan loogu diyaar garoobayo xuskan ayaa bilowday dhismaha jidka isku xidha xaafada shanaad iyo wadada Wajaale taasi oo lagu yareynayo ciriiriga gaadiidka wadooyinka waaweyn ee magaalada Jigjiga maaraya ku xigeenka wakaalada dhismaha iibka iyo adeega gaarka ee booliska dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdifataax Mataan Siciid ayaa sheegay in jidkan uu qayb muhiim ah ka qaadanayo fududeynta isku socodka gaadiidka waxaan dhex taaganahay muxuu ahaa wadada qawleega Zoran Mistila iyo wadada Wajaale isku xidha distancekeedu waa 2 kilomitir anagoo qaawadanayna waa mirtii ka soo baxday xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ahayd in lagu caawiyo wixii aqoon iyo tabar maamulka magaalada si loo fuliyo qorshaha soo dhaweynta magaalooyinka ama macni waxa weeye city forum wax loo yaqaano ayaa xafiiska wakaalada dhismaha iyo iibka adeegyada gaariga booliska dawladda deegaanka Soomaalidu waxay qaadatay inay ka caawiso wadadan anagoo ku waxaynana kharash aad u yar oo macni waxa weeye profit fundingayga ahaa shaqaalahayga ama injineeradii saylasha loo joogayna ay aqoon macni waxa weeye ay kartida ay lahayn ay ku caawinayaan qalabkan isticmaalayna waa qalabkaygii waxaan kaga hawlgelaynaa maadaama uu nahay shirkad anagu inaan ku caawino maamulka magaalada wadadan dheer ee muxuu ahaa dhismaha ah carradhig baan u sameeynaa wadadan oo anfacaysa maadaama taa dheer ay hadii jeer xiranto tii macni waxa weeye baabuurta u fududeeyay maadaama ay tan u tahay maarayaha maamulka magaalada Jigjiga Cabdi Saalax ayaa cadeeyay in jidkani ay fulinayso wakaalada dhismaha iibka iyo adeega gaarka ee booliska dawladda deegaanka Soomaalidu uu door muuqda ka qaadanayo kor u qaadida bilicda magaalada Jigjiga heerka oo dhan dhammaan waxa lagu soo dhaadhicay maamulka magaalada Jigjiga nin walba qaybtiisa ka qaadanaya maamulka marka qaybtan wakaaladu waxa naga caawinaysaa wadada weyn inta lag bay naga caawinaysaa si wadada weyn culays uga daago oo baajaajka iyo waxyaabaha yar fududi xaqana u soo wareegan ay naga support garanayaan wadada waxa noqonaysaa ilaa 2.5 km ilaa 2.5 km bay noqonaysaa wadada bilicda magaalada aad bay u qanaysaa dadka laftigeeda waxa aad bay ugu dhibtoon haduu roobku doo baajaajku inaad ogtahay mooyaan wadada kale tala mara baajaaj dadka gaari wax ka sadeetay saadada culayska iyo loadka si ay u isticmaalaan martada noo imanaysa wadada weyn wixii kale inagana magaalada joogtayna ay wadooyinka kale u isticmaalaan tasadonkiyo tasay u kale isticmaalaan ay waxay ay qaateen wakaaladu inay naga caawiyaan wadadan weyn ee wadadan weyn injineerka gacanta ku haya jidkani ayaa tilmaamay inay maalmo kooban ku soo gabagabeynayaan jidkani maadaama uu dhameystiran yahay agabkii loogu talagalay furintani wadadan oo faraha hadda ku hayno maintenance-geeda wadadan waa wadada isku xidha qawleega Zoran Mistila laga soo bilaabo ilaa iyo laamida Wajaale marka wada aad u dheer oo ilaa 2 kilomitir iyo badh ah waxay ka caawin doontaa congestionka ka jira magaalada in baabuurtu ay ku kala yaraadaan marka wadadan waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo gabagabeeyno ilaa bari insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo ay noqoto wado servicekeedii bixisa waxyaalahan ka bixinay waxa kamid ah anagoo clear gareynayna oo meelihii dhinta damage-ka ahna buuxinayna asweelas carrakaabadii baan dhigaynaa marka saasaan u wadnaa hadda marka machinery nagu filan iyo qalabkii nagu filan waan haysanaa marka hadda at least waa inaan sida ugu dhaqsaha badan insha Allah ku dhameynaan ku rajaweynahay qaar kamid ah shacabka ku dhaqan xaafadaha laga fuliyay jidkan ayaa tilmaamay inuu wax badan ka tari doono dhibaatooyinkii hadda ka hor ka haystay isku socodka inkasta oo mar alaaliya marka roobku uu da'o biyo zaa'id oo ka imaanaya xagga iyo jaamacadda oo la dhaho ciryar oo xaafadoo dhan aad dhibaato ugu haysa ilaa iyo haddana dee dawladdu wax quman ay ka qabatay ayna jirin baahida ugu weyn aan ahayn waddada keliya in la sameeyo ee biyaha xoogga leh ka soo baxaya jaamacadda in la qabto oo si toosa loogu daro togga markaas ayay waddadu waxay noqon kartaa waddo qiimo leh oo la isticmaali karo jidkani oo ah mid isku xidhaya xaafada shanaad iyo wadada Wajaale ayaa sahli doona isku socodka bulshada iyo gaadiidkaba